وحيان الرأى إن أنا نوقف بسومين دور الشحر وحلالة صدق هي 8 نوفمبر 2017 وكواني عودين أمانة مدحوده احترامية أنا وحالتي نجود وهجية نكى وهرية تلفون ده مركز ده عشان يسوق على عبد الرحمن بو جوش وشجعنا يوم مدحوين هنا صدق كنت مي وين وجين لكن حسبه حقان كجاري السبب طرية أرنتها المدحوينها كرسي الله حرام مركب مدحوين بلاد مر ميسين لوجه هذا ولي كرسي هاللوجو دارت مدحوينها مدحوينها الصوماليلاند مدن موسى بيهي عبدي waxa uu sheegay isla markaasina uu ka jawaabay eedeymo uga yimid mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani madaxweyne Muuse Bihi Cabdi waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayaan dhaliil kasta oo lagu saxayo xukuumaddiisa waa kan madaxweyne Bihi oo arrimahaasi ka hadlaya dadku xisbiga kala raacay oo codeeyay noomadan codeyn ugu yaan taageeran islaayo oo fidan u horseedo waxa uu kala dooranaysaa saaq qabo wartarowkee waxa wanaagsan ay akhriyaan إلا ويحد قديم ما نشوف إني هو حاصل ورثة مدو لك كلام سؤالي وكبديناي وحنوك على دورتين كيبات ترو وحفوري كره يهدد كويس قبتي وركنا الرون يا كنا الرون بالوك العدي ميت بعد كوبتي وأنا لما أنت واحد كنت وابي حسبك استا هو وحد دور يصير أي ما ودي القبرية هو مركاها حتى كان لا يحضر في كل مية هاي كي ودنا هاي كي وكان الكيسوق ورثة هذا هيدا دي وكو قبسومية markiina gudoomiyaha Cabdiraxmaan ee wadani laba goor u hadlay maalintii uu dhiibay baa ahayd video waan ogolahay natiijadii wuxuu yiri umiyaa ka yiri uma tanaasulin ninka aanu tartamayni uma tanaasulin xisbiga aanu tartamayni qaranka aanu tanaasulin ma iska hore hadii qaranka loo tanaasulay wax kama qabo waa guul laakiin bar haddii uu baar qaamuska siyaasadda oo haddaad qofkii kula tartamay aanu tanaasulin حزبنا أنا تراسلين يا تناسوش ولدي إنه دخلت برا مر آخرية ديوان كسياسته أنا مر بانو أسفاره جيب وسناي فلارت أنا حال كذا هلا هلا خطايا يلو تراسلين دي إلا أنت كيف برا بكرة مركب ضي تاجر سنة في حزبك كلا ينك ودرت والله في مركب بشيء بقيبة عوضي حب الله هيا إن السوء داية وحنا سوينا مركب عرض دنت عرض ولا برياء يكسر ريته إن حزب وطني يقدميه لقطة كقبول إلى هذا عمود ودرا ترى مركب واحد عين أنا إذا كنت كبقايا ودت كي عذي احترامية وكواني عذين أمانة مدح عذي احترامية أنا وحالتي نجود وهجية نك وهرية تلفون ده مركب ده عشان يسوق على عبد الرحمن بوها جميع حزب الوطني وحنو عذين حزبية تسكت أي أديه جامنة قبل هذا كبحران مشاكل قوانين أنه حلله تسكت ده بيجي دقيقتين وعذي رجع نقفريه إذا كمان في علم لكن وانا كرامة يسين مركان احترامنا يداهي أنا وتاكد ولا يلهب وحصار عيد دور وقت عيوني صور خسارة كل بشتريون باترتيه أو هذا بردها فريد وتجي دور مكافئ ويحو كبراوي ولا لا يدور شيء ولا هلا لا صومي نارين هابل هذيك السنة ولا لا يلا كل مين ما حمل وأنا ولا يسوي واحد ساسولي عشان دي أدو دوت وين دقيست وحلاها حدي قاموس كاسا صدق لقى هلو حزب دورشاد ولا حزب كا أماهيي وأمي تقول عسوه لا يسوي شيء وحنصلها هدانو كل مين هاي حزب كل مين يمرشح كل ترتبعي أنا أقول ما قبنا إلى ضمان هسي دورش وحنو قبنا إنه ترتبني سعد على اللي نوجو قيبيي ترد اللي نوجو حوليي aad ka dacwootay aad tirin meelaha qaarkood goobaha qaarkood iyo kursiga qaarkood ay baaro in la baaro way idin xalibneyd oo aanan ka hadal oo la hubiyay oo aynu 80 kun oo cod ku kala badnay baan qabaa oo fair iyo daacad ah waxa isweydiin leh haddii maanta 80 kun uu leeyahay waanu helo waalina ama hiyo waalina booday Cabdiraxmaan uu xisbigiina uu hogaaminayo doorashada bana uu ku noqon doono oo talo tiro yar oo lagu burba haduu keeno 87 muxuu yari doona in rag baa ka tagay 87 gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Xirro ayaa waxa uu jawaab ka bixiyay hadal uu horay
u jeediyey madaxweyne muuse biixi. faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray waryaheena Faysal Maxamed Aadan FIFA. cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani oo ay welinaya xubno ka mid ah saraakiisha xisbigaasi oo booqasho socdaala ku yimi halkan waa xarunta guud ee isbitaalka magaalada Hargeysa oo xilligan ay yaalaan dhaawacyo kala duwan oo isugu jira kuwii ku waxyeeloobay shaqaaqadii koobnayd ka dhacday deegaanka Darweyne ee degmada Elafweyn ee gobolka Sanaag iyo sidoo kale dhaawacyo kale oo halkan lagu daweynayay muddooyinkii laga soo gudbay ayaa markii uu soo kormeeray isbitaalka qaybo ka mid ah waxa warfidyenada la hadlay waxa uu la hadlay warfidyenada isagoo sharaxaad ka bixiyay ujeedada socdaalkiisa uu halkan ku yimi reer Somaliland ee ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay Darweyne alxamdulillaah rabbil caalamiin intii badneedaan soo aragnay xaaladooda way fiicnayd dhaawacyo way qabeen laakiin intii badan xaaladooda aad bay u fiicnayd marka hore intii dhimatay baan ilaahay naxariis weydiinaynaa qoysaskoodii iyo Somaliland oo ka taxsiyadeynayna marka labaadna inta dhaawacana ilaahay waxaan u weydiinaynaa caafimaad sariic ah in ilaahay bogsiiyo oo caafimaad siiyo mar labaadna waan ku baaqaynaa baaqi nabadeed aan ku baaqnay hore ee ahaa in colaadda la joojiyo oo dagaalka la joojiyo sugidda amniga iyo dhammaystirka colaadda waa waajib iyo xil saaran xukuumadda waxaanu jecelnahay xisbi ahaan tallaabo kastoo lagu sugayo ammaanka inaannu gacan ka siinno xukuumadda iyo salaadiinta iyo cid kasta u kacaysa hawsha hadday culimo tahay laakiin waxaa xilkaasi saaran yahay in heshiisyadii hore la fuliyo ee ay ku heshiiyeen iyo in colaadaasi soo noqon iyo in maanta ammaanka la sugaba xilkaasi waa xil saaran xukuumadda waxba midaan fahmin mal aniga imu eedayne telefoon buu ii soo diray waa runtii waa mahadsan yahay madaxweynuhu anigoo boora ma jooga wuxuu igu wargeliyey in colaadi halka ka dhacday aad buu ugu mahadsan yahay in igu wargeliyo waxaanu anigii madaxweynuhu isla qaadanay inaan baaq nabadeed ka jeediyo arrintaa baaqii nabadeedna isla saacad kadib baan ka jeediyey anoo boora ma jooga wax kaloonu ka ballannay madaxweynaha anna waxaa ku yidhi dee xilku idinku idu saaran yahay aduu ku saaran yahay markaa madaxweynaha waxaan jeclay inaan iskaga khaldamin wasiirkii gudaha iyo cabdiraxmaan cafo gudoomiyaha oo warfidyenadu dhanka kale wax ka weydiiyeen dhawaaqyo isaga lid kuwa oo maalintii shalayd ka soo yeedhay madaxweynaha Somaliland mudane muuse biixi cabdi oo la xidhiidha dhacdada ka dhacday deegaanka Darweyne ee degmada Elafweyn iyo sidoo kale tabashooyinkii ka soo baxay doorashadii madaxtinimada ee 13 November sanadii 2017 ka qarsatay gudaha Somaliland ay waxa uu ku jawaabay siday ku dhamaatayna waynu ogeyn guusha uu sheeganayo madaxweynuhuna siday ku timi waynu ogeyn laakiin xisbigu wuxuu go'aan ku gaadhay isagoo tudhaya arrintaa in madaxweynaha kursiga looga hadho marka madaxweynuhu malaad muu rumaysan in looga hadhay weli kursigii loogu dhaarto madaxweynaha ugu dhaarto Faysal Maxamed Aadan Faysal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa salaamaya dhammaan shacbiga reer Somaliland meel kasta ay joogaan walaalayaal waxaynu ka wada shaqaynay dhammaanteen haddaynu nahay shacbiga reer Somaliland in dalka ay nooga qabsoonto diiwaangelinta codbixiyaasha kadibna aynu helo doorasho xor ah oo xalaal ah taasaynu bilownay 2013 waxaa yaan darro ah inaanay noo qabsoomin doorasho xor ah oo xalaal ah 13 November 2017 dhacdooyinka soo qaadan doona waxaa ka mid ah in la xidhxidhay mas'uuliyiin iyo taageerayaal tiro badan oo xisbiga wadani ka tirsan intii ka dambeysay 13 November iyo maalintii doorashadu socotay qaar ka midna guryahooda loogu daatay goor habeenimo arrintaasi waa arrin aan la aqbali karin oo la qaadan karin arrintaasi waxay abuuri kartaa xaalad amniga wax u dhinta sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa in muwaadiniintaas si degdeg ah xorriyadoodii oo taama loogu soo celiyo
walaalayaal doorashada madaxtooyada ee jamhuuriyadda Somaliland ee noo qabsoontay 13 November waxa ku gadaaman madmadow fara badan kaasoo dhaliyay musuqmaasuq iyo ku shubasho baahsan oo ka dhacday dhammaan degmo doorashooyinka Somaliland waxaana tusaale soo qaadan karnaa dhacdooyinka maalintii doorashada waxa ilaaliyayaasha ama goobjoogayaasha xisbiga wadani soo gudbiyeen 1200 oo dhacdo oo isugu jiray dib loo geystay iyo hadidaad ama gacan ka hadal iyo khaladaad ku saabsan hab socodka doorashada waxaad ogtihiin in xataa horjoogayaasha caalamiga ah ay qireen in caruur da'doodu ay ka yar tahay da'dii loo ogolaa oo 7 jir ilaa 12 jir ay codeeyeen waxaad la socotaan in komishanka doorashooyinku qirtay in buugaagtii qaar ka mid ah ay ka baxeen faraha komishanka suuqana laga soo helay arrintaas oo fooximo weyn ku ahayd doorashada guud ahaan waxa kale oo la helay sanaadiiq badan oo tirada ku jirta ay ka badan tahay tii loogu talagalay inay ka codeeyaan waxa kale oo dhacday doorashadan inay suurto gashay in dad geeriyooday Ilaahay u naxariistay ay codeeyeen waxaan shacbiga reer Somaliland iyo taageerayaasha xisbiga wadaniba u xaqiijinaynaa una sheegaynaa inaan aqbali doonin xaq darro iyo wax sharciga baalmarsan hase yeeshee waxaan ku wargelinaynaa taageerayaasha xisbiga wadani inaan xaqiijinta helitaanka xuquuqdooda u mari doono dariiq silmi ah oo nabadeed walaalayaal saad ka warqabtaan waxa dhacay dib weyn doorashada kadib waxa daatay dhiig muwaadiniin aan hubaysnayn oo waxay galabsadeen jirin ayaa geeriyooday waxa cusbitaalada Hargeysa iyo Burco jiifa dad dhaawac halisi uu soo gaadhay dadka aan indhahayga ku arkay waxa ka mid ahaa inan yar oo 13 jir ah oo feeraha rasaasi kaga jirto waxa ka mid ahaa inan yar oo 16 jir ah oo sida loo sheegay dhuxul u doonaysay reerkooda Ilaahay u naxariistee dadkii Hargeysa ku geeriyooday waxa ka mid ahaa hooyo meherad yar haysatay oo markaa ka soo rawaxday oo gurigeeda ku socota taasi waxayna tusaysaa in rasaas aan loo miidaan yeelin shacbiga loo adeegsaday arrintaa mas'uuliyadeeda waxaanu saaraynaa xukuumadda waxaanu uga digaynaa ciidamada ammaanka inay shacbiga u adeegsadaan rasaas dad aan hubaysnayn si aan dib u soo gaadhin shacbiga ay ka mas'uul yihiin ammaankooda walaalayaal maanta uma baahnin in dhiig dambe daato uma baahnin xaalad amni darro ah inay abuuranto uma baahnin in walaalnimada iyo midnimada shacbiga Somaliland dhaawac soo gaadho waxaan uga digayaa mas'uuliyiinta xukuumadda iyo xisbiga kulmiye inay ka fogaadaan arrimaha kicitaanka iyo xaalad abuurka ay faraha kula jiraan oo ay ka mid tahay xadhiga aan sharciga ahayn ee mas'uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiga wadani iyadoo dalku ku jiro xaalad xasaasi ah waxaan u sheegayaa taageerayaasha xisbiga wadani in taariikhdu isqorayso caalamkuna soo eegayo Somaliland sidaa darteed laynooga baahan yahay degenaanshiyo